بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف. فصل هذا كان فاصل ومد وحكى السارة في فروض الوضوء وسقاتك واجباتك سأيو فصليه. sheekh raximahullahu tacaala halkan wuxuu ka bilaabayaa qofka raba inuu weyse qaato maxaa laga doonaya wixii ku waajibi lahaa qofka weyse qaadanaya ee laga rabay uu waajib ahaa ayuu sheekhu meeshan ka gelayaa raximahullahu tacaala. weyse qaadka marka xigmadda loo waajib yeelay iyo sababta loo waajib yeelay waa wax macquulul macno ahoo waa wax macnahooda la fahmi karo maxaa yeelay لأن الصلاة مناجاة الرب صلاة ومناجاتك قفك إلهي سبحانه وتعالى أي الله هدليا لأن الصلاة مناجاة الرب تعالى قفك تكان يا إلهي أي الله هدليا سبحانه وتعالى فضلب التنظيف لأجلها سدا سامرك وحا الله ضلبي ولو واجب يالي ما دام إلهي سبحانه وتعالى قفك الله هدليا إنه الصنظي فيه sababtaasa marka loo waajib yeelay weysaqaadka. furuudul wuduu'i weysaqaadka waajibaadkiisu 6 wey. 6 shay ayaa waajib ku ah qofkii doonaya inuu weyse qaato. al awalu midka ugu horeeya waa an-niyatu waa niyo. midka ugu horeeya waa niyo. ولقوله صلى الله وسلم وبارك عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عمل كستا أولا السمين يوحى لا بدأه وأن لو جمار مينين والنية يجير النبي عليه الصلاة والسلام. وحال ربا قفك مركب هراء إنو نيستو إن ويساق آدنا يو وحيابها ونيسان يو وحاكم ده أما ونيسكرا رفع الحدث wuxuu kaloo niyeysan karaa الظهارة للصلاة inuu u weyse qaadanayo. alawalo midkii u horeeya waa an-niyatu waa niyo niyadaasa khasaba inuu marka hore ka bilaabo. athani faradkii labaadna waa ghaslul wajhi wajiga dhaqitaankiisa wey. faradkii labaadna waa wajiga qofka waa inuu dhaqaa. wajiga dhaqidiisa marka waxaa soo gudagalaya timihii ku yaala wajiga oo idil dhammaantood ayaa soo gudagalaya sidii xaajibeynkii iyo ahdaabtii iyo shaaribeynkii. al-ahdaab al-arbaca waa isha baararkeeda timaha isha ku yaala baararkeeda way soo galayaan oo afarta ah in la dhaqo waa waajib. waxaa kale soo galaya isha korkeeda kuwa ku yaala way soo galayaan oo in la dhaqo waa waajib. shaaribkii in la dhaqo iyo kuwii la midka ah gabi ahaan in la dhaqo waa waajib. marka shucuurul wajhi dhammaantood in la dhaqo ayaa soo gudagalaya. athani faradkii labaad waa ghaslul wajhi wajiga dhaqidiisa. athalithu midkii saddexaad waa ghaslul yadayni labada gacanood dhaqitaankoodu macal mirfiqayni labada xusul micigoodana la dhaqo. faradka saddexaad ee ka mid ah furuudul wuduu'i wuxuu yahay labada gacanood in la dhaqo ilaa laga gaarayo xusullada. waa inta waajibka uu kaaga dhacayo. inta waajibka ah waxay tahay labada gacanood inaad dhaqdo ilaa laga gaarayo xusullada. laakiin maxaa sunno ah? waxaa sunno ah in weysada kor loo qaado maxaa yeelay uu xusullada kor looga sii qaado. maxaa yeelay nabigeena sala allahu wasalam calayhi wuxuu ummadiisa ku ammaanay in maanta qiyaamaha xibnahooda ay la iftiimayaan inta ay gaarsii jireen weysaqaadka. qof walba inta weysada uu gaarsii jiray dhaqitaanka xibnaha intaasa u iftiimaysa maanta qiyaamaha siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. marka haddii aad rabto xibnahaaga inay kuu nuuraan maanta qiyaamaha weysada kor u qaado inta waajibka aad dhaafsii maxaa yeele waa sunno in kor loo qaado. الرابع faradkii saddexaad uu ka mid ah furuudul wuduu'i waa masxu shayin shay masaxitaankiisa shaygaasoo min ar-ra'si madaxa ka mid ah. shay ka mid ah madaxa waa in la masaxa walow bacda shacratin
haltin barkeed ba Allah ka dhigay aw qadraha min al-basharati haltin kala barkeed ba Allah ka dhigay in la masaxo oo biyaha la taabsiyaa waajib ah ama tintaas qadarkeedii wax la mid ah ee ka mid ah madax وعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الرابع متك أفراد ومسح شيء مسح الديس شيء من الرأس مدح كامدة الخامس فرد الشنات وغسل الرجلين لبد اللقوط دقيدودا مع الكعبين لبد أنقو معيقودنا لدقو لبد اللقوط إن لدقو أنقو يدنا لدقو وإنت واجب كأيضا إنت سوا واجب لكن إن أنقو يدا لدافيو كرلوسي قادو ويسدا إلا نصف الساق وشنشada la gaarsiiyo kala barkeeda waa sunno ajirka ayaa kuugu badanaya waana sunno qiyaamahana way ku iftiimi sidaas marka sunna in kor loo qaado al-khamis qaslu rijlayn labada lugu dhaqidooda waa macal kacbayn labada aan qowmicigoodana la dhaqo السادس faradki lixaad waa at-tartiib waa tartiib waxaa loo baahan yahay in la kala tartiibiyo oo marka koobaad sida loo soo sheegay aad ugu dhaqantay waajibaadkaano marka koobaad waa inaad niyeysato weysaqaadka talabaad waa inaad wajiga dhaqdid saddex waa inaad labada gacanood aad dhaqdid afar waa inaad qayb ka mid ah madaxa aad dhaqdid aad masaxdid walow bacda shacra watan soo dhehne shan waa labada lugood in la dhaqo lixna waa sidaas at-tartiib sidaasoo markuu keenayaa tartiibka inaad xibin aad ka hormarin ama aad isku dhex qaldin marka aawa dhagihii aaway hadda dhagihii sheekhu ma sheegin raximahullahu tacaala maxaa yeelay dhaguhu dhaqidoodu waa sunno sunanta ayay ka mid yihiin weysaqaadka meeshana waxa laga hadlayay furuudul wuduu'i weysaqaadka waajibaadkiisa laga hadlayay sidaasoo sheekhu u xusay raximahullahu tacaala maadaama dhaguhu ay yihiin sunno marka niyada war badan ay yeelo doontaa insha Allah taala fasalkan soo socda ayaan ku sheegi doonaa ilaahay idinkira fasalkan ku sheegi doonaa hayeesha 10 intaas maanta ku soo gabagabeynayna wallahu subhanahu wa ta'ala alam